Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada Somali Home Design. Magacaygu waa Engineer Cabdifataax AutoCAD. Waxaan sharxi doonaa qaabka loo isticmaalo AutoCAD Dimension or AutoCAD Unities. AutoCAD Unities markaad sharxino qaybtaas cad ayaad AutoCAD-kaada dimensionkiisa aad ka bedeli kartaa micnaha unitkiisa. Aan isla daawano qaybta hoose waxaan ku qorayaa Unities. Waa kaasa waad ku dhufanaysaa. Then markaad ku dhufatid AutoCAD-kaada waxaa kuu soo bixi doono waxaa kuu saaran uu ku leeyahay inches unit scale-kaaga cabirka kuu saaran dimensionka waxaa waaye inji. Anaga inji hadda ma rabno, waxaan saaranaynaa inaan saaro inches, waa inaan ka bedelna aan saarnaa mitir. Okay, mitir. Then qaybta korona waxaa ku qoraysaa 0 hadda noo tahay 0.0 ayaan geynaynaa siduu hadhooti uu cabirkeena at least waxaa 5 senti ka yar camal uu noo ugu aqriyo. Okay, 0.0 wax kalena uga caawinayso dimensionada aadka u yar oo jajabka saa'idka galay ay ka caawinaysaa inuu ku aqriyo dimensionkaaga. Then waxaa leedahay okay, halkanna waxaa iska fiirisaa international meesha ku qoran tahay waa inay ku ahaataa international, aan ka dhigin American system. Please international ayaad ka dhiganaysaa halkan. Then waxaa leedahay okay, sidaas ayaa cabirkaaga uu kugu bedelmay aad ku saaratay meter system. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada Somali Home Design. Magacaygu waa Engineer Cabdifataax AutoCAD. Maanta waxaan sharxi doonaa sida loo isticmaalo line and offset. Line and offset markaan aan rabno inaan isticmaalno, number 1 line-ka ayaan ku hormaraynaa. Line-ka markaan ku hormarno waxaan ku dhufanaynaa line-keena qaybta kore saad aragtaan. Line-ka markaan ku dhufto qaybta kore, line-keena ayaan soo active gareysanaynaa. Then line-keena sidaan ayaan u sameynaynaa. Waad aragtaan line-keena markaan straight-ka waa ogolaanayaa, wax qalqalooc ah kuma jiro. Then straight-ka markuu line-ka saan kugu ogolaado waxaa ka horeyso line-kaaga inaad qaybta hoose oortaha aad hadda off on ayuu noo yahay. Markaan off dhahno badanaa off ayuu ku imaadaa. Off markaan dhahno line-keena waa sidaan. Meesha raa u jijiidi karaa naqshadeeda qalooc ayaa naga soo galay. Naqshadeeda qalooc markuu naga soo galo ma toosin karno. Inaan toosinna marka awoodeeda haddaad soo saarin oortaha kuma suurta galayso inaad samaysid. Then waxaan sameynaynaa oortaheena ayaa active ka soo dhiganaynaa. Oortaha markaa active ka soo dhigano qaybta hoose line-keena ayaan soo kacsanaynaa. Then wuxuu leeyahay line-keena directly meesha rabna u jijiidi karnaa asagoo toosan oo aad u qurux badan. Saas ayaan ku isticmaalaynaa line-keena. Haddii waxaan galaynaa haddana offset-ka. Offset-ka markaan galno waxaan sameynaynaa aan isla aragno offset-ka. Offset-kaan ku dhufanaa kabacdi wuxuu ku leeyahay offset-ka distance aad bixisid geli. Waxaan leeyahay 0.5 enter aan leedahay. Then midkaa rabtaa ku dhufanaysaa offset inta bax ama halkan bax saa jeceshahay. Kana kor u bax ama hoos u bax. Meesha jeceshahay mar walba u baxaysaa. Waad aragtaan. Then waxaa leedahay offset-keena waxaan rabaa inaan baxo mitan oo kale 4 mitir. 4 mitir aan gelinayaa. Offset-ka markaa hal mar kali ku dhaho distance-aha geli ku leeyahay 4 mitir gelinaysaa enter aan leedahay. Line-kaad rabtaa dul tagaysaa 4 mitir soo bixaysaa. Haddana waad wadaysaa ilaa 4 mitir. Saas ayaad u wadaysaa. Qaabkaas ayaana loo isticmaalaa offset-ka. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. aad baad u mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaan sharxi doonaa sidee loo sameeyaa extend and trim. Extend and trim markaad rabtid inaad samaysid number 1 waxaad soo qaadanaysaa line-kaaga. Extend horta wuxuu kaa caawinayaa extend and trim dialogues ayay ku wada jiraan. Extend trim wuxuu kaa caawinayaa inaad number 1 line-ka dheeraadiga ah aad ku jirtid, halka extendna uu kaa caawinayo meel
laba line oo gaab u dhexeeyo inaad ku buuxisid. Okay, waan arki doonaa. Number 1 line aan ku example gareynayna. Line-keena aan soo qaadanayna. Line-keena markaan soo qaadano, waxaan rabnaa line-keena hadda labadan line inta u dhexeyso gaab yar ayaa u dhexeeya inaan soo buuxiyaa rabaa. Qaabka ugu fudud aan ku buuxin karo waxaa waaye inaan soo sameeyo extend aan buuxiyo labadan line aan isku xiro. Extend markaan sidaan usoo doorto extend aan dhaho, then waxaa leedahay mouse haddaad isticmaalaysid right keliga hal mar leedahay. Haddii aad keyboard isticmaalaysidna enter ayaa hal mar leedahay. Then line-kaa rabtaad dul istaagaysaa, waa kana asaa isbuuxinay click ah hal mar ku leedahay. Sidaas ayuu kugu xirmay line-kaaga. Then waxaa leedahay marka waxaad u baahan tahay inaad halahaas dheeraadiga ah aad jartid. Intaas dheeraadiga ah inaad jartid markaa rabtid, trim-kaaga ayaa hal mar ku dhufanaysaa. Trim markaa ku dhufatid, mouse haddaa isticmaalaysid asagana hal mar right click leedahay. Keyboard haddaa isticmaalaysina mouse-kaaga keyboard-kaaga enterta qaybta enterta ayaa click ku leedahay. Then waxaa ku soo baxay maqas yar oo guduud ah oo ku caddeynaya inuu trim-kaaga active yahay. Then waxaa leedahay hal mar click ku leedahay. Line-kaas sidaas ayuu ku go'ayaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Aadaan idinku mahadcelinayaa. Haddii uu muuqaalkan ku caawiyo share dheh, subscribe and like and comment. Fadlan waa nala wadaagi kartaa wixii cillad aad aragto.